kulan wacan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada warka galka wararka qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee dalka Kenya oo lagu dhawaaqay madaxda caalamka oo soo hambaliyeynaysa madaxweynaha cusub ee loo doortay dalkaasi Kenya ee William Ruto iyo waliba musharrixii sida weyn ula tartamayay William Ruto oo diiday inuu ku dhawaaqo in laga adkaaday doorashada. aan ku bilownay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya William Ruto ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi ka dhacday 9 Agoosto 2022 waa sida ay ku dhawaaqday guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha ee dalkaasi Kenya. Ruto ayaa si dirqi ah kaga adkaaday ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga. waa markii shanaad oo Raila Odinga uu ku guuldareysto doorasho madaxweyne oo ka dhacda dalkaasi Kenya oo u tartamo. natiijada rasmiga ah ee guddiga doorashada ayaa muujinaysa in Ruto uu helay 50.49% codadka la tiriyay oo u dhiganta 7,176,141 cod halka Odinga uu helay 48.85% oo u dhiganta 6,942,930 cod. Odinga ayaa sanadkan haystay taageerada madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Uhuru Kenyatta oo sanado badan xifaaltan siyaasadeed uu kala dhaxeeyay balse taasi ma aysan noqon mid William Ruto ka reebta kursiga madaxtinimada. madaxweyne Uhuru Kenyatta oo qaatay labadiisii muddaxileed ee dastuurku u xadiday ayay isku dhaceen Ruto kadib doorashadii 2017 wuxuuna markaasi kadib uu isbahaysi la samaystay Odinga. madaxweynaha cusub ee lagu dhawaaqay ee dalkaasi Kenya William Ruto ayaa waxa uu hambaliyeeyay siyaasiyiin kala duwan iyo waliba madax ka tirsan wadamada dariska la Kenya. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ahaa mas'uulkii ugu horeeyay ee u soo hambaliyeeya. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ayaa iyaguna hambaliyo u mariyay baraha bulshada kuwaas oo ay ku taageerayeen guusha uu ka gaaray doorashada ka dhacday dalkaasi Kenya. shacabka Kenya ayaa baraha bulshada isku weydiinaya halka uu jaan iyo cirib u dhigay Raila Odinga oo aan tagin goobta lagaga dhawaaqayay natiijada madaxtinimada ee dalkaasi Kenya. xamaasad kooban ayaa ka dhacday xarunta doorashada lagaga dhawaaqayay kadib markii kolonyo baabuura ay soo galeen xarunta oo la isu diyaarinayay in natiijada lagu dhawaaqo. balse ruuxaasi xamaasadda dhaliyay ayaa waxa ay noqotay hooyada dhashay William Ruto. kooxaha warbaahinta ayaa waxa ay degeen goob u dhow ilinka laga galo goobta ay ka socotay ku dhawaaqista natiijada doorashada ee dalkaasi Kenya oo ay ku sugnaayeen madaxda iyo howlwadeenada guddiga doorashada iyo xuduudaha ee dalkaasi Kenya. golaha odayaasha Kikuyada oo ah qabiilka uu ka dhashay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa qirtay inay ku guuldareysteen inay akhriyaan xaaladda siyaasadeed ee gobolka Mount Kenya ka hor inta aysan go'aansan inay taageeraan isbahaysiga uu hogaaminayay Raila Odinga. gudoomiyaha golaha odayaasha ayaa sheegay in natiijada doorashada ay muujinaysay in isbahaysiga United Democratic Alliance ee madaxweyne ku-xigeenka William Ruto uu si xoogan ugu guuleystay gobolka ay degan yihiin. waxaanu qiraynaa in guuldarro ayna soo gaadhay balse ma dhahayno waan qaldanay sababtoo ah aqlabiyadda macnaheedu ma ahan in mar walba ay saxan yihiin. gudoomiyaha golaha odayaasha ayaa sheegay inaysan hagin dareenka iyo go'aanka dadka halka loo badan yahay balse ay qiimeynayaan xaaladda ayna go'aanadooda ku salayn doonaan xigmad. waxa uu sheegay inay jiraan kuwa ku jeesjeesaya odayaasha sababo la xiriira inay qaateen mowqif siyaasadeed oo si xoogan ay u diideen una bahdileen codbixiyaasha. waxaan taageernay madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu noqdo boqorkeena xitaa marka uu xukunka ka dego. waxaan isku waafaqnay taageerada Raila Odinga ee ah inuu noqdo musharraxa ku habboon inuu bedelo Kenyatta. go'aankaasi ayaa ah weli kii ugu xigmadda badnaa ee bulshadeena. sidaasi waxaa yiri gudoomiyaha golaha odayaasha qabiilka Kikuyada oo ka hadlayay natiijada la shaaciyay ee dalkaasi Kenya. daawadayaal intaas ayuu ku egyahay warkii aad kala socoteen channelka galka wararka. haddii aad daawada nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar barnaamijkana sii share garee si uu dad badan u gaaro. mahadsanid.